magaalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa soo gaaray madax amni oo hordhac u ah madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland kuwaas oo la sheegay inay sahmin doonaan halka ay degayaan madaxdan oo ka qayb galaya shirka wadatashiga uu ku baaqday madaxtooyada Soomaaliya kaasi oo qorshaha u ahaa inuu dhaco koodii bishaan balse baaqday kadib isfahamwaas oo kala dhaxgalay madaxtooyada Soomaaliya iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ciidamada ilaalada oo ka xoogan kuwii hore ee isku khilaafay ayaa maanta gelinka hor lagu wadaa inay ka soo degaan magaalada Muqdisho iyadoona gelinka dambe ilaa maalinimada Khamiista ay Muqdisho imaan doonaan wafuud sare oo ka socota dhanka Puntland iyo Jubbaland ka hor Jimcaha ayaana qorshaha ay tahay inuu furmo shirka golaha mustaqbalka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee matalaya xisbigiisa GSB qodobada ugu waaweyn ee dhinacyada ay ku doodi doonaan ayaana waxa ka mid noqon doona doorashooyinka waana shirkii koowaad ay isku hor fadhiisanayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hogaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland kadib December 2022 uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhinacyadan uu khilaaf uu soo kala dhaxgalay waxaa la isku hayaa dastuurka iyo sidoo kale doorasho qof iyo cod wax ka bedelka dastuurka oo cutubyada 5 ilaa 9 ee baarlamaanka Soomaaliya hor yaalaan ayaan ah dhinacyada waxyaabaha ugu badan ee isku hayaan shirka ayaana qorshaha wuxuu ahaa inuu furmo koodii bishaan balse Villa Soomaaliya ayaa ishoristaag ku sameysay diyaarado ay saarnaayeen ciidamada ilaalada madaxtooyada maamulada Puntland iyo Jubbaland kuwaas oo ay sheegtay dawladda in ciidamo badan hub aad u fara badan in ay la yimaadeen magaalada Muqdisho isla markaana dawladda arintaas ay cuntumi weysay golaha mustaqbalka ay ku midaysan yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland iyo sidoo kale xubnaha samata bixinta ayaana shirka ka hor yeelan doona shir gaar ah oo kaga hadlayaan qodobada ay la hortagayaan Villa Soomaaliya madaxtooyada Soomaaliya ayaana qorsheynaysa in shirkan la qabto iyadoona madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maalmo kadib shirka uu u safri doono magaalada Addis Ababa ee dalkaas Itoobiya waa fursadii ugu dambeysay madaxtooyada Soomaaliya ay haysato haddii aan heshiis rasmi ah laga gaarin arrimaha doorashooyinka muddaxileedka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo bilooyin ay ka harsan yihiin ayaa waxay u muuqataa in dhinacyadan ay qaadan doonaan go'aan ah inay soo doortaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka iyo xildhibaanada golaha aqalka sare taasi oo meesha ka saaraysa qorshaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ku aadan in doorasho qof iyo cod dalka laga hirgeliyo isla markaana wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka dalka xubnaha mucaaradka ayaan ku doodaya in wali uu shaqeynayo dastuurkii 2012 halka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dastuurku wuxuu ka bedelay iyadoona cutubka 9 ee haatan isku hayaan xildhibaanada golaha shacabka